Cole Palmer oo jebiyay rikoor taariikhi ah oo horay u haystay Fabregas. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Cole Palmer ayaa jebiyay rikoorkii Cesc Fabregas ee ahaa tirada gacanka geesiga goolasha Premier League isagoo xiran fanaanada Chelsea. Palmer wuxuu hadda ku lug yeeshay 54 gool oo isugu jira caawin iyo goolal horyaalka Premier League, halka Fabregas uu lahaa 53 intii uu joogay Stamford Bridge tan iyo markii uu kooxda kaga yimid Manchester City. Palmer wuxuu isla markiiba saameyn muuqata ku yeeshay kooxda. Wuxuu noqday mid ka ugu goolasha badan Chelsea xil ciyaareedkan, wuxuuna si joogto ah uga qayb qaataa goolasha, ha ahaato inuu dhaliyo ama caawiyo. Cole Palmer ayaa hadda dhaliyay 31 gool iyo 19 caawin isagoo ciyaaray 53 kulan oo rasmi ah. Tani waxay muujinaysaa waxqabad cajiib ah, iyadoo ay jirto inuu weli yahay ciyaaryahan daayar ah. Wuxuu sidoo kale noqday xidigii ugu horeeyay tan iyo Eden Hazard oo la dhihi karo 2 xilli ciyaareed oo isku xigta ayuu 20 gool iyo caawin sameeyay. Cesc Fabregas ayaa ka mid ahaa khadka dhexe ee ugu aqliga badan Premier League, isagoo si weyn uga qayb qaatay goolihii Chelsea intii uu joogay. Si kastaba ha ahaatee, Palmer wuxuu darbo gaaray kana sarmaray waxqabadkii Fabregas dhanka tirada goolasha iyo caawinta. Tani waxay muujinaysaa sida uu Palmer ugu degdegay inuu noqdo halyey cusub oo Chelsea ah. Marka laga tago tirooyinka goolasha, Palmer wuxuu leeyahay dabeecad ciyaareed oo hufan, go'aan qaadasho fiican, xirfad kubadeed oo sare iyo deganaan marka uu hortago goolka. Waxa kale oo uu caan ku yahay inuu ciyaar fiican la sameeyo asxaabtiisa khadka dhexe iyo weerarka. Guusha Palmer ee hadda waxay muujinaysaa inuu leeyahay mustaqbal weyn oo hanaqaad leh. Chelsea waxay heli kartaa ciyaaryahan ay ku dhisto kooxdeeda mustaqbalka dhow iyo midka fogba. Haddii uu sii wado horumarkan, Palmer wuxuu noqon karaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu saameynta badan taariikhda Chelsea.